bal ka waran xalay toole doodii ka qabsantay golaha ammaanka qaramada midoobay maxaa kaaga soo baxay marka madaxweynaha uu matala uu yiri xasuuq baa ka dhacay Somaliland oo loo geystay madaxweynihii ka horeeyayna yiraahdo xasuuq baa loo geystay Somaliland dadka Somaliland danjirihii matalayay dawladahaasna ee joogay wala qaramada midoobay ee wala Security Council ka fadhiyay inuu yiraahdo xasuuq kama dhicin Somaliland marka waxay tusaysaa inuu yahay qof aan mas'uul ahayn waxaan anigu aan aaminsanahay in wax doodeena xoojinaya ama jiritaankeena xoojinaya aqoonsigeena xoojinaya inay doodahoodaas ay ka soo baxday xalay maxaan saa u leeyahay Security Council-ka waxa ka soo baxa go'aamadaas waa loo codeeyaa haddii inta joogta ay codahoodu bataan ay ku guuleystaan waxay noqdaan go'aan iyo resolution baa la yiraahdaa number buu yeeshaa wuxuu noqdaa resolution sida hadhowto looga noqdaa ay adag tahay wahagaag daawadayaal sidaad la wada socotaanba waxaa xalay toole goor dambe golaha ammaanka qaramada midoobay ay dood xoogan ka yeesheen qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland iyadoo halkaasi ay doodaasi geysay dawladda Soomaaliya balse Soomaaliya ayaa la sheegay in aanay halkaasi kala kulmin wixii ay filaysay iyadoo oo inta badan wadamadii ka qayb galay doodaasi ay si cad amaba aanay u sheegin mowqif cad oo ka qaateen aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland ay siisay dawladda Israa'iil haddaba haatan waxaa barbarkayga midig taagan Dr. Adna Aadan Ismaaciil wasiirkii hore arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland Dr. marka hore waan ku soo dhaweynayaa bal ka waran xalay toole doodii ka qabsantay golaha ammaanka qaramada midoobay maxaa kaaga soo baxay alxamdulillah wax anigu raygayga waxyaabo ka duwan baan ka filayay laakiin sida ay noqotay sida ay markii dambe ay u dhacday waxaan anigu aan aaminsanahay in wax doodeena xoojinaya ama jiritaankeena xoojinaya aqoonsigeena xoojinaya inay doodahoodaas ay ka soo baxday xalay maxaan saa u leeyahay Security Council-ka waxa ka soo baxa go'aamadaas waa loo codeeyaa haddii inta joogta ay codahoodu bataan ay ku guuleystaan waxay noqdaan go'aan iyo resolution baa la yiraahdaa number buu yeeshaa wuxuu noqdaa resolution sida hadhowto looga noqdaa ay adag tahay alxamdulillah taas ma dhicin waxa dhacday intii markii horeba miidiyaha ay ka lahaayeen dalalka qaar iyo Soomaaliya xulufadooda ay ka lahaayeen ayuun bay golahana keeneen waxaad moodaysayna warqad loo wada laqimay oo isku waxun bay akhriyeen territorial integrity of Somalia waa muqaddas adduunkuna wuu og yahay in territorial integrity of Somalia aanu ku dhisnayn iyadoo ay Somaliland ku jirto marka anigu waxaan u arkay in qadiyadeena ay xoojiyeen waayo adduunku wuu kala garanayaa dhulka Soomaaliya leedahay ee aynaan ku xadgudbin iyo dhulka Somaliland leedahay oo ay xaq u leedahay oo aynu u haysano cadeymo u haysano oo aynu deganahay marka waxaan leeyahay guul bay ahayd waxaan aad ugu mahadnaqayaa Mareykanka oo taageeray xoojiyay dimuqraadiyadda oo yiri dal walbaba wuxuu xor u yahay inuu doono inuu aqoonsado the United Nations ma xukumi karo dal kale aqoonsanayo waa wax u gaara labada dawladood iyo labada dal ee aqoonsanaya marka anigu waxaan u arkaa waxay u ahayd Soomaaliya biyo cildaanshiyo bay u ahayd waxaanan kaloo aan aad ugu faraxsanahay in ninkii dhammaa ee danjiraha ahaa ee matalayay dawladda Soomaaliya inuu ka jeediyay statement ama ka jeediyay maxaan ku raraa go'aan ama warbixin ka duwan oo ka soo horjeeda tii madaxweynihii ka dhigtay danjiraha ka dhigtay ka soo horjeeda marka madaxweynaha uu matala uu yiri xasuuq baa ka dhacay Somaliland oo loo geystay madaxweynihii ka horeeyayna yiraahdo xasuuq baa loo geystay Somaliland dadka Somaliland danjirihii matalayay dawladahaasna ee joogay wala qaramada midoobay ee wala Security Council ka fadhiyay inuu yiraahdo xasuuq kama dhicin Somaliland marka waxay tusaysaa inuu yahay qof aan mas'uul ahayn oo aan kelmad sax ah oo xalaal ah aan sheegay
oo dhibaato ku noqon doonta marka bisha ay Soomaaliya ay fadhido Security Council-ka in amuraha adduunka laga doodaya amuraha adduunka ee culus in shirgudoonku uu noqdo qof aan kala garanayn xalaasha iyo xaaraanta kala garanayn. دكتور أدنى آدم ما واحد مركز وجهة إن سوماليا وحي أي فيلسي كلامي كل من قالها من كقرامة مدوبي سومالي لأنه واحد دن واحد أيال كاسي كصباحي واحد دن إيران أبا كصباحي هذه أدبن وفرح سنة إن قرامة مدوبي سكيورتي كونسل سومالي لاند كلمة ده سومالي اللجوء العليي ودلك سومالي اللجوء العليي دلك سوماليا لا هي متشرو سوماليا نروح متشرو تي سوماليا لا هاي سكيورتي كونسل كانت كلمة ده مجانا لو سوق على دور شيء أنت هسه قولة. بالقوة ضد إسرائيل هي صبر نكتة. إسماعيل الدولة إسماعيل وهذا سياسة أوبس لاضي وسعودية الجنوبي وتحسي واضح وش جاي قرتي سأقول نقضي أما سومالي قلت المامي مركا أنت ما نقول ما هالنقية وسجى السينما وسد حقيقة سيد أي وش جاي إن أدونك أفكار إن كلمة سومالي لان أمانتي ay ka dhageystaan Security Council-ka golaha United Nations ay ka maqlaan oo dal kale uu ka yiraahdo inoogu marxaati furo guulka weyn anagu garan maayo imikana waxa loo baahan yahay inaynu halkaa ka sii wadno oo aynu qadiyadeena halkaa iyo meeshii walbaba ay fursad u helo aynu ka jeedino marka anigu waxaan leeyahay xalalka guul weyn ee noo soo heetay magaceeni meel weyn baa la gaarsiiyay qadiyadeeni dalal baa ka hadlay oo ka dooday oo inoo dooday maraykanku wuxuu xaq bay u leeyihiin dalka aqoonsiga xaq buu leeyahay marka hadii barito dal kale iyo saddexaad iyo afraad ay aqoonsadaan ee cabsi kama qabaan in maraykanku ka soo horjeesto wayde waxa loogu marxaati furay in dalba xor yahay ciduu doono aqoonsada marka alxamdulillah waxaan leeyahay waa guul weeyaan guushu midabo badan bay leedahay malaha inagu sideen u rabnay ma ka filaynay may noqon laakiin waxaan u arkaa in si wanaagsan ay noogu dhacday maraykanku inoo hiyay dawladihii naga soo horjeedayna wax warqad loogu qoray oo isku wada mid ah weligeed jiri jirtay inuu akhriyay marka wax cusub inuu sheegay way marka la eego Maraykanka iyo Israa'iil Maraykanku sidoo uga hadlay ma laga yaabo ma la oran karaa Maraykanka iyo Israa'iil way isku aragti dhow yihiin qadiyada Soomaaliland dawladdaas way cadahay waayo Maraykanku haddaanu qadiyada la soconaanay isku aragti aanay ka ahayn lacagtu saar lahaa oo kelmadihii dawladihii naga soo horjeeday ku hadleen oo kale ayuu deesuna ku hadli lahaa marka waxay ahayd anigu waxaan u arkaa taageero laba dal oo waaweyn oo culus ayaa Security Council-ka golihii United Nations ugu sareeyay adduunka ugu sareeyay qadiyadeeni kaga hadlay aad u naastigtay alxamdulillah shukran